ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka ayaa la wareegay degmada Kuntuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaasi oo ahayd taliskii ugu weynaa kooxda Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dagaal kooban oo ka dhacay halkaasi ayaa waxaa lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argagixisada iyadoona qaar kale nolosha lagu qabtay. ciidanka danab ayaa xabsi ku yaala degmada Kuntuwaarey ka sii daayay dad shacab ah oo kooxda Al-Shabaab u xirnaa, waxaana sidoo kale ay soo badbaadiyeen caruur ay nabadiidka u tababareen isqarxinta iyo sidoo kale dagaalada. xilliga ciidanka kumaandooska gudaha ay u galayeen Kuntuwaarey waxa uu shir uga socday qaar ka mid ah horjoogayaasha Al-Shabaab kuwaasi oo qaarkood la dilay qaarna la dhaawacay halka kuwa kalena nolosha lagu qabtay. horjoogayaasha lagu dilay howlgalkan ayaa kala ahaa madaxa jugta culus ee gobolka Shabeellaha Hoose Maxamuud Axmed Gaboobe Raage Daariq, madaxa maaliyadda Kuntuwaarey Khalid Cumar Sariix, madaxa maxkamadda Kuntuwaarey iyo deegaanada hoos yimaada Muxsin Sheekh Cali iyo madaxa jabhadda ka howlgasha Kuntuwaarey Salaaxudiin. taliyaha guutada 16aad ee kumaandooska danab gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig Maalin ayaa idaacadda codka ciidamada qalabka sida u sheegay in ciidamada ay howlgallo ka wadaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Kuntuwaarey iyagoo ku raajooga baxsadka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee laga itaalka roonaaday. degmada Kuntuwaarey ayaa waxa ay ahayd goobta kaliya ee xoogga shabaabka ku haray, waxaana sidoo kale ciidanka danab kaabiga ay ku hayaan sablaale oo ay gaareen firxadka maleeshiyaadka isaga cararay degmada Kuntuwaarey. waxaa sidoo kale u suura gashay ciidamada inay burburiyaan bambooyin argagixisada ay u diyaariyeen dhagridda dadka iyo dalka. howlgalkan ayaa qayb ka ah qorshaha ciribtirka argagixisada Al-Shabaab ee xididada loo siibay iyadoo Al-Shabaab lagala wareegay furaha dagaalka. cabdifataax akhyaar, idaacadda codka ciidamada qalabka sida degmada Kuntuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose.